بإذن الله الباري هدي أنو أركو ضد أما أن لهرو ضد بدن وإن شاء الله داوضو أما أنو أركو ضد كما عركتا صحيح عكس تماما النقطة وحين معركتا النقدان وحان إنما لما ليسن كرن إنا شقيان اسكداية معركتا لباتوين معركتا لغا دحلي يدو حقيقة أهان لهبين وحاسيتي محيهيتو لما ميردالي دونان مسيه حفظ قرآنك ولا شيء ذا هجاكسن سي أظهر مرك وقارتو قب هجاكسن تقوضونها أهاتو لجركاقا هميقاقونها سريو قب هولسن بسم الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته دمان ولا لها قيارة أصحابتان جعلها يا جنال كيغان واني وعيقلن كحران ولا ليال سودو هذا دمان ولا لها يقول عصبنا سودوين واحد لا سودو هذا قاعد مفرنك سودو هذا أخياري أصحابي مانت إن شاء الله وحان ربعين إذن لو ذاقو موضوع عن جعلها إن جنال كيغو سو كرديو موضوع عاسي أو مقعيسو يهي تجابي أو تبي إن شاء الله موضوعا هرتا حلقديسي كواد اما حلقه كميد حلقوينكيسا اما قيب كميد قيبوينكيسا waxa ay baxday fiidiyoogii ugu dambeeyay ee fiidiyoogan hadda aan soo duubay ku horeeyay ahayd insha Allah laakiin fiidiyoogan kuma soo gudbin doona xalqa cusub laakiin waxaan rabaa insha Allah inaan idin la wadaago sababta igu kaliftay maxay heetoole inaan mowduuc noocan soo kordhiyo iyo maxay heetoole mowduuca maxaan uga dan leeyahay liftirkiisa iyo sidoo kale intood mowduucu ma noqon doona mowduuc maxay heetoole channelka si joogta uga baxa oo ma aragtaasi socdo insha Allah ugu horeen hadii aan ku hormaro waxa aan uga dan leeyahay tijaabi oo tabi waxa aan ka wada horta waxaan isleeyahay waa af Soomaali ma aragtaa waadixa oo qof walba uu fahmi karo luqada Soomaaliga fahma hadii aan laakiin si jilciyo waxaan uga dan leeyahay waxa ay tahay in aan soo tabiyo ama maxay heetoole waxyaabaha aan ma aragtaa mowduucaaniit aan ku soo qaadan doono dhamaantood ay noqdaan biidnillahi albaari waxyaaba aan aniga shakhsiyan soo tijaabiyay kadibna markii aan ma aragtaa natiijo waadixa ama natiijo cad aan ka helay insha Allah idinkana aan idin la wadaagi doono ama sidoo kale intood ma noqon doono gabi ahaanba wax aan aniga kaliya soo tijaabiyay laakiin wax ay ma aragtaa dad aniga igu dhow ama dad ma aragtaa aan ku kalsoonahay warkoodana insha Allah war la qaadan karo oo insha Allah maxay heetoole dad walaalo islaam la wadaagi karo waxay soo tijaabiyeen insha Allah iyadana waan ku soo qaadan doonaa mowduuca marka waxaan maleynayaa macnihiisa inaad fahanteen sidoo kale intood mowduucaaniiti insha Allah ma noqon doonaa ama maxaa igu kalifay ugu horeen horta maxaa igu kalifay mowduuc noocan inaan soo jeediyo maxaa igu kalifay ama inaan channelkayga ku soo kordhiyo ugu horeen horta waxa igu kalifay waxay tahay waxa iska batay ama aad u batayba dadku inay ma aragtaa wax walbo maxay tor social media dhankee doontaba aatay soo geliyaan macal asaf shadiid waxyaabahaasina aysan ahayn waxyaaba iyagu tijaabiyeen ama ma aragtaa macluumaad sax ah ay ka hayaan markaasna waxa dhacday waxay taa anigan boo igu dhacday marar badan in wixii ma aragtaa qofkii qof baahi u qabo uu ahaa waxaas laga hadlayo qofkii walaalka ahaana uu tijaabiyay kadibna iska daa inuu wixii ma aragtaa walaalkaas ugu sheegay u noqotay bal عكس تماما النقطة وحين معركة النقدان وحان إنما لما ليسن كرن إنا شقيان اسكداية معركة لباتوين معركة لغا دحلي أنا كان إذن الله اللي أنا مرة بدنا يقول عضي سواس درادو نوحن جعل استينا إن شاء الله معركة موضوع نوعانا عن سوقاته مدى لبعض يوحن بارت موضوع عنا سوقاتنا وحيتهاي إن شاء الله أنا قو كدولينا عيد قرآن كهيدا إهد يا أيها الذين آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون آياتاس إن شاء الله أنغو ما عرفتا سلدك دغانينو اما ان سلدك دغاني إن شاء الله أنا waxaan jeclaystay inaan mowduucan soo qaato aayadaasiti inta fahanti way fahanti intaan fahmina macnihi waxa ay tahay maxay heetoole in adiga si guudba adiga maxaad macnihi Ilaahay raxmaanka waxa uu leeyahay maxaad ma aragtaa waxyaaba aydan sameeyneenin ya ayyuhalladina aamanu lima taquluna ma la taf'alun maxaad u leedihiin waxyaala maxay heetoole aad aydan sameeyneenin maxaad sidaas daraadeed marka maxay heetoole ma rabno in ma aragtaa waxyaaba aan aynan sameeyneenin ama aynan soo tijaabinin insha Allah inaan dadka walaalahay la wadaago ma rabo mowduucaaniitina maxay heetoole sababtaas waa sababta labaad oo igu kaliftay inaan mowduuc noocan soo qaato sidoo kale mowduucan ma sii socon doona
taas insha Allah waxay ku xirnaan doontaa janalkayga mawduucyo fara badan ayaa ma aragtaa cid la socotayba aan marar badan bilaabay laakiin waxa ay noqdeen kuwa aan joojiyay sababtan waxay tahay فيديو markaad sameynaysid xaqiiqatan waxay tahay waqti badan ayuu ka qaadanayaa marka maadaama waqti badan ka qaadanaya muhiim ma ahan dadka ku daawado inay noqdaan dadaad u tira badan laakiin muhiimadu waxay tahay hadii aan la helo mawduuci wax daawado insha Allah oo ma aragta xiiseenayo oo rabo insha Allah uu sii soconaya marar badan mawduucyada aan soo geliyo waxa aan u joojiyo waxay tahay daawashadooda aad u yareed anigana maxay tahay wixii waqti badan ayaan gelinayaa marka sida daraadeed ayaan garowsaday in ma aragta mawduucan marka waxaan garowsaday xitaa mawduucan inuu san ahayn mawduuc baahi loo qabo waa mawduucyadii aan bilaabay oo joojiyay aan ka hadlayaa marka sidaas ayaan u joojiyay laakiin kan insha Allah biidnillaahi albaari hadii aan u arko dad ama aan la helo dad badan oo insha Allah daawado ama aan u arko dadka ma aragtaa saaxiibada igu xiran janalkaygan ku xiran inay ma aragtaa ay si fiican u daawanayaan ama la socdaan insha Allah waxaan sameyn doonaa waxay tahay uu sii socon doonaa موضوع بإذن الله الباري انت اودين الهي نجارسيو ان شاء الله ايانا ما عرفتا اي سو غدبين دونا taas waxaan maleynaya insha Allah iyadana in laga qancay marka khiyaar ya asxaabi insha Allah mawduucan waxaan rajeynayaa biidnillahi albaari inuu noqon doono mawduucaad faa'iido badan insha Allah ka faa'iidaan annagana insha Allah noo noqdo inaan tijaabino wax la hubo xaqiiqo ah oo walaalaheen inaan lugoonin xaqiiqatan lugooyadu ma fiicno dadkii maanta waxa ay intooda badan ilaa mar raxima rabbi ma hana isugu dhufteen in wax walba maxay toole laga hadlo ama la iska soo sheego iyadoo aan xaqiiqo ahaan la hubin waxa seeti maxay heeto lama miro dhali doonaan mise dhibaato ay qofka walaalka ku keeni karaan dadka markii ay ma aragtaa insha Allah wax soo gudbinayaan waxaan iyagana fariin ahaan ma aragtaa halkaan uga gudbinaya insha Allah cid ay fariinteedan gaarto inay soo gudbiyaan waxyaabo ma aragtaa ama bulshada ay la wadaagaan waxyaabo ay hubaan tayadeeda biidnillahi albaari aniga cidna ma dhaliilayo cidna maxay heeto warkaygu weerarku ma ahan insha Allah laakiin waxa aan uga dan leeyahay in ma aragtaa maxay heeto si guud ee waana noogu إن شاء الله maxaa yeelay wax walba oo maanta aan ku hadalno waxa weeyaan wax diiwaanka aakhirana galay insha Allah biidnillahi albaari qof walba walaal ah oo ma aragtaa wax adiga aad soo gudbisay ku dhibaatoodan insha Allah ilaahay uu ku weydiin doonaa maxaa yeelay qofkan walaalka ah uu ku aaminay wuuna ku rumeystay sida daraadeed rumeynta uu ku rumeystayna waxa laga rabaa ma aragtaa waxa laga rabaa adigan inaad ka run sheegtid si sax ah iyo macluumaad sax ah insha Allah inaad soo gudbisid إن شاء الله خيار يا أصحابي ورجينا موضوعا إن فهمتين بإذن الله الباري وشرحات لما يسترنا كبحين إن شاء الله وحن رجينا إن شاء الله إن الحلقوين بدن أو موضوعا كسابسن إن شاء الله أنك وضحت لدونا بإذن الله الباري حلقة وجوه الرئيس وبحد إن شاء الله أما معركة قيبت وجوه الرئيس بإذن الله الباري قيبها الدنباء إن شاء الله موضوعا يموضوع يكلو حيصة بدن إن شاء الله وجنر كان كسكر إني بإذن الله الباري دبني ذيك لو ذاك دونا أنت أنكو كل من وحن إذا كجت جيا إن شاء الله إذا كو آدم مهتسن كنا مهتسن سيد قروح بدن لا يدمر والبيرس عطاني داوش دي النبأ سلامك السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته حفظ قرآنك ولا شيء ذا هجاكسن سي أظهر مرك وقارتو قب هجاكسن تقوى ذونا ها أهاتو لجركاقا هميقا